لصحابية أي وقت الظهيرة مقالة مكة مقالة مدينة حل الظهيرة ودولك كل يهي أيو مقالة صوت أحمر إنير أو قرح بدن بواركو مرقع سوق قرصو اسكبوا دون كذي وحكى لكم سمينين مركو وكذا قاقو سيدا يينا وسيحن واينكي ذنبك هو سميه وكن كشكليا مركا ابو يمد رسولك يا رسول الله إن يربان طريقة قبطه وارد دون كذي وحكى لنا كما سمينا الله يقول حدك أنيق الله يمريو مركا ابو النبي آموسي لا شريعة مركا كامل ما هين كل بين با شريعة السعودة جيسي كل بين تأمدوا أي إيمان كيجو زيادة أي أحكام دي شريعتنا أي السعودة جيسي مركا سنبي آموسي وعوري فردي وسجلنا حكمك إلهي مركز إلهي صوت جي آيات القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صلاة شنت وقت أوجب إلهي قفف خيري نقدع دعي خير كاعات سميسين الصلوات كاعات كها ليسان صلاة خير كاعات كها ليسان بإلهي كوك حياة وكما صحايا مركب صحابي جيبايري ألي هذا يا رسول الله مركز النبي ورنيك يا أوي هبل واكن عادي ونبي مركز بروك وأخري ألي هذا عادة لما نكلي يسود دكتي مركز مي أمة ضيدور لما هاكو سود دكتي برسولك يري ذنبك يكبغي يا أصحاب إنكم ما ضدتك الزمن كان جوجا أفعاش إلهي كعريسين يسي كبقي ماينو لكن waxa ka baqayna xanuun yar oo hargab laga baqaya caalamka oo dhan maanta hargab uu ka baqaya hargab macaasida meel walba taala dulmigi zinadi fujurki fisqigi gaalnimadii fasaadkii adduunka oo dhan maanta saameeyay la oran maayo cara ilaahay baa soo socotay oo la qayli maayo la dhawaaqi maayo la ooyi maayo bal waxa laga baqayaa xanuunka yar baa adduunka oo dhan gaadhaye aqaladiina isku xidha oo mamoodku ma qalbu ku dayn ayna ma takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi buruj mushayyada ma shaadon taga ku jir mawtku isaga ku soo galayaba kama harayaba lagama baxsado nabiyullaahi daawud alayhi salaam oo habeenada kamid aqalkiisa dhex jooga ayuu arkay nin daarada dhex socda markaas uu warqalka halkeed ka soo gashay xurdawaaniga soo galay dhex jooga yaa ku idmay wuxuu malaha ima garanaysa isku kayshay boqoradu aqalada ay samaysteen ciidamadu ay dhigteen ka bilaa fasaxa ku soo galaan haydu anigu markaas waan ku gartay buu waa malakal maut naam maziyaradi ugu timiday buu yiri mise amar baad sidaayna nafta iga qabato ما أمر باسدا وساعدي ما كان دماتي ولما وحى ليسي خيار سي نبينا دي مشهد وخيار ويان وخيار خيار السجسيو نبي داود هدودنا أدوية كالسوقات هدودنا أدوية وده هسك جوجي مركز سوري مساسها هنود لا كلك إلهي وأن جعلها نفته قد لا كلك إلهي مؤمنك وجعلها هي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن إلهي أبو جعل يهي عملك إلهي والله ارتقى يبو جعل يهي عملك آخرين كبت داني يبو جعل يهي ما دام مؤمنك إلهي لكل كيس أبو جعل يهي عملك آخرين بدبادين يبو جعل يهي إلهينا عبدونك الله كل كيس هدو طولوا جعلي وعندما يسيان لقوق عبسين لما شدوا وعود الله تيبا ورمينا من هلاته ودى الله تبسينا دمت بل نكي لينا الدنتان ود الشوق عند تاك خلاص لماذا تخاف لماذا ذات قدم شدك بقايا مسلم كما هلا دون ما مسلم كل بشك بقى شو عرفتي ما هذا مسلم كي قال المهم يا رشن جركا
iyo kooda konton jirkaas ku aragti maaha shan jirkeena haddaad ku tiraahdo ayaa ku abuuray waxaa koran ilaahay bay abuuray shan jirkeena haddaad ku tiraahdo ma dhiman mise waad noolaan waan dhimanayaa oo markaad dhimato xaggee tegaysaa aakhiraan tegayaa buu ku odhan soo sidaa maaha nin konton jiran maalin dacwo siiye nin caddaana markaasuu yidhi waxaanaad ka hadlaysa ma fahmayo buui markaasaa yidhi bal u soo gaabiyo waxaa yidhi ayaa ku abuuray adiga wuxuu yidhi hooyaday baa dhashay buui ayaa dhalay markaasaa ku yidhi hooyadaana ayaa dhalay hooyadaana ayaa abuuray markaasuu yidhi hooyadayna habarunbaa dhashay waa nin konton jira warkiisii wuxuu dhaafi waaye ani habar baa i dhashay habartaana habar baa dhashay markaas ma dhiman mise waad noolaan markaasuu waan dhiman dhimashada kadib xaggee tegi ma garanayo ur meelaan tegaayo aabbahayna iima sheegin hooyadayna iima sheegin jaamacadahana layguma dhigin buuhi dhimashada wax ka dambeeya konton jir kooga shan jirkeenna ka mustawo sarey hadday muslimiintu wax fahmayaan shan jirkeennu meeshuu ka yimid wuu yaqaanaa meeshuu u socduu yaqaanaa allihii keenay buu yaqaanaa ujeedada loo keenay buu yaqaanaa waa haddii shan jirkeennu u helo tarbiyo saxa marka adduunyadan ilaahay baa iska leh ilaahay baa isagaa ka taliya isbeddelka ilaahay baa keena kii ilaahay ciseeyana cid ma dullayn karto kii ilaahay hoosu u dhigana cid ma kor u qaadi kari mayso kii ilaahay nolosha uu qadaro cid ma dili karayso haddaad tidhaahdeen makhluuq baa wax dilaaya sifaadkii ilaahay lahaa ayaad makhluuq u nisbaysa almuxyi waa kuma almuxyi waa kuma almumiitu waa kuma alcaliim waa ayo alkhabiir waa ayo alsamiic waa kuma albasiir waa kuma sifaadka ilaahay baa le cid kale ha u sheegin sifaadka ilaahay u daa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu bihaa sifaadkan 99 magaca ilaahay magac kasti macno cajiib u leeyahay macno cajiib u leeyahay magac walba macnuu ku fadhiya marka sifaadka ilaahay uu leeyahay makhluuq ha u nisbayn ka wax dilo waa ilaahay ka wax nooleeyo waa ilaahay ka arsaaqada bixiyo waa ilaahay ka amniga keena waa ilaahay ka amniga markuu doono rafacana waa ilaahay meeshuu doono amni ka dhigaya meeshuu doonana ilaahay waxuu ka dhigaa cabsibu ku ridaa amarka isaga leh ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدح بقل الصنو أيو يروح سمينا يا الجنة يا الدويدة صدح بقل الصنو الذي سيالي لمقالة داس نبي هود baa uga warramay maaragtaanay jannada markaasuu yidhi anaa jannadii adduunyada ku samayn waxaa la yidhi 120,000 oo muhandis magaalada 120,000 oo injineer ay ka shaqaynayso imisaa shaqaale ka hoos shaqaynaya 120,000 oo injineer qusuur qasriga ka qurux badnaa adduunyada ayaa laga dhisay markaasuu yidhi jannadu maxay leedahay basaatiin geedba geedka adduunyada uu ka midha macaan yahay ku beera buu yidhi waa lagu beeray waddooyinkii sameeya gabadhba gabadhay adduunyada ka qurux badan tahayna soo qaado ku riday buu yidhi waa horaacayntii bal bini aadamka kibirkiisa eeg irama daati alcimaad allatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad qur-aanka ilaahay ku sheegay waxaa la yidhi qusuurtii waa kaa buhi qusuurtii waan dhisay basaatiintii waa anigaa sameeyey buu yidhi xuuralcayntii waa anigaa keenay buu yidhi dumarkii adduunyada ugu qurux badnaa waxaa la yidhi gabadhu
dabaq intay madaxa ku qaada baa la yidhi faaruqa ayaa geedaha la hoos maraysay ayadoon gacanteeda midhaha ku soo goyn ayaa timirta iyo midhaha bislaaday dabaqa dusheeday ku hoobanayeen baa la yidhi 300 oo sanana magaalada waa la dhisayay markii la yidhi boqorkii loo tagay la yidhi muftaaxa kaale naga taqabal muftaaxa naga qaad waan dhameynaa jannadii waan ku dhamaystirnee ilaahay jalla wacala uu eegayaa malakal mawd waxaa amar lagu siiyey lugtaa midig markuu jannada uu sheeganayo uu la galo ta bidix intuusan la gelin nafta ka soo qabaa lagu yidhi hada huwa albashar bini aadamku waa qadarkiisu lugtii midig markuu sidaa u geliyey ayaa ruuxda laga qaada gebigiisiiba jannadii adduunka uu ku sameeyeyna dabayl ilaahay intuu soo qaado ku qariyo gebigeegiiba waa halka rubc alkhaali baa la yidhahdaa waaba la qariyeyba magaaladii dhannay warkoonkan ilaahay baa ka taliya isbeddel haddaad aragto xanuun baa isbeddel keenay ha odhan yaa keenay ilaahay baa isbeddel keenay xanuun baa wax dila ha odhan haddaad muslim tahay ka xisho waa inaad tidhahdo amarka ilahay buu qofku u dhintaa amarku u dhintaa saacaddaada hadday dhammaato waa diman waad ka tegi adduunka meelna ilaahay wuxuu ka dhigaa nabad meelna ilaahay cabsi buu ku ridaa shardi maaha in aafadu adduunyado dhan ay gaadho may nebiyullaahi ibraahim calayhi asalaam dabkii loo shiday isagoo arkaya ayuu nebi ibraahim uu yidhi may waxba ani dabkan iga qaadi maayo ilaahay baan haystaa nafaa facaaliyat almakhluuq ibraahim calayhi asalaam wuxuu diiday uu masaxay inuu makhluuqu awood uu leeyahay keligii wax ku samayn karo waxna ku bedeli karo xataa jibriil oo gargaar u yimiday buu ihi may yaa ibraahim yaa jibriil may maanta adiga may rabbigaysa maanta kama maarmay isagaan u baahanahay buu yidhi dabkii bay ku tuureen ilaahay janno uga dhigay ugama dhigin dee muu gubaa markaa dabku ila bini aadamka ishiisu waxay leedahay dabku wax buu gubaa laakiin nebi ibraahim yaqiintiisu waxay leedahay may dabkan inuu aniga i gubo amar buu u baahan yahay meesha amarku ka imanayaan anigu cilaaqa la leehay bas gaaladu ma soo dhowaan karaan laakiin ibraahim calayhi salaam dabka dhexdeedu iskaga dhex jiraa asbaab annajaa ilaahay baa haya kuu doonuu ilaahay nabadgelin kuu doonuu ilaahay halaagi kuu doonuu ilaahay cizayn kuu doonuu ilaahay dullayn kuu doonuu ilaahay qani ka dhigi kuu doonuu ilaahay faqiir ka dhigi kuu doonuu ilaahay hadayni kuu doonuu ilaahay hallayn qul illaahumma maalika almulk maalika almulk waayo weeyaan allah weeyaan allah allah mar walba isagaa adduunyada ka taliya tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa nidaamka caalamka oo dhan baa isbedelay maanta caalamka laa taa'iraat tataxarak walaa diyaaradaha dhaqaaqaaya walaa eraboorradii baa shaqaynaya walaa maraakiibtii baa shaqaynaysa walaa magaalooyinka caasimadii baa shaqaynaya caalamka oo dhan u istaagay aqalkaaga nin walba fadhi baa lagu yidhi yaa ku yidhi iyaa ku yidhi ilaahay baa ku yidhi ilaahay waxaa soo socdaa ka weyn ogow waxaa lagu tusinaya waxaa dambeeyaa ka weyn waxaa dambeeyu nebi maxamed uu inoo sheegay hadda caqligeennu shaqaynayo oo qalbigeennu shaqaynayo oon cibro ku qaadanayno aayaadkan aan arkayna maanta waxaa soo socda ee adduunyada imani doonaa ka weyn waxaasoo dhan marka koonkan ilaahay ku baro qudradda ilaahay ka dhex baro qudraddii baa shaqaynaysa mid dheer iyo mid gaaban mid aad u gaaban buu mid ku yidhi aayad baa tahay markaas ida anu aayad baan ahay ha adna aayad dheer baa tahay ula sarkaynaya dadku moogtahay wax cajiibay la yaabaan qof gaaban buu arkay way la yaabeen kii gaabnaabayn maxaad iga eegaysaan dee aayad baa tahay oo idinkuba aayad baa tihiin war maalintu waa aayad oo dabayluhu waa aayad oo badda halkaa la joojiye waa aayad oo roobka da'aya waa aayad oo noloshiiyo dhimashadu waa aayad oo farxad iyo murugtu waa aayad oo amnigiiyo cabsidu waa aayad isbeddelka caalamka allah baa keena cid kale ma keento
yaanan iimaankaaga iyo qalbigaaga lagaa leexin. ilaahay waa caliim, waxa maanta adduunyada ka jira isaga unbaa og, waa khabiir weeyaan, waxa imani doonee soo socdana isaga mooyaane cid kale ma taqaano. waa caliimun khabiir, waa basiiru, waa samiicun basiir. waxa adduunka jooga isagaa arkaaya, isagaa maqlaaya. hadday makhluuqu meel iskugu soo baxaan oo ilaahay ay baryaan oo baryadooda baahidooda ilaahay u sheegtaan, hadalna hadalka kale ilaahay ka dhex gali maayo. bal u fiirsa samciga ilaahay. law qaamuu fii saciidin waaxidin fasa'aluunii faacطaytu kula insaanin mas'alatahu ma naqasa dalika mima cindii ila kama yanqusu almikhyadu idaa udkhila albaxr bur ilahay xadiis alquds. hadday meel bannaana iskugu soo wada baxaan oy bannaaniisa soo taagaan bani aadamkao dhan oo mid walba ilaahay ay weydiistaan waxay doonayaan, jiniya insiya makhluuq hadday isku yimaadaan oo ilaahay ay baryaan, marka horraysa waxaad ogaataa hadalka kale ilaahay ka dhexgali kari maayo. mid walba uu maqlayaa. haddaan mid walba baahidiisa intoon maqalno oon baryadiisa intoon maqlo aan baahidiisa u daboole baa ilaahay yidhi, oo waxay doonayaan aan wada siiyana khasaa'intayda khayrka ku jira isma dhimaya baa ilaahay yidhi. sida irbadbad la geliyo waxba uga dhimay. makhluuqoo dhan hadday isku yimaadaan oo baahidooda ilaahay u sheegtaan oo jannada ilaahay weydiistaan oo ilaahay waxay doonayaan ay weydiistaan, waxay doonayaan haddaan wada siiya baa ilaahay yidhi, khasaa'intayda khayrka ku jira isdhimi maayo. sida irbadbad la geliyo waxba uga dhimay.